ururka inaysadowga suxufiyiinta Soomaaliyeed ee markii magaasha laha Gaabilon Gordo Fesoj ayaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay waliba ayaa gabagabeeyay tababar muddo la maalmood ee uu dareeray kaas oo lan qabadi wariyalka ku cusub warbaahinta walibana markaas ay tababarkan ka saabsanayay tawinta diyaarinta sheekooyinka wararka xilliyada doorashooyinka iyo waliba goobo ku dareeran isku dhacyada taas oo markaas lagu faa'iideeyay tababarkan ya waliba ku qayb galay ku dhawaad 25 wari oo ku shal dareeran warbaahinta ku jirta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baaya tababarka waliba biyay macallimiin markaasaya in muddo saxaafada ka jirtay oo uu sankuraya ustaad Faarax Umar Nuur iyo waliba macallimiin kale oo markaasaya iyona qayb ku hayn biyowga tababarkan hano kumid wariyalkii ku faa'iideysadii tababarkan ya waliba iyo kurbiyana muddada lama maalmood waliba ka baradan waliba waliba iyo reed iyo kalnaga doonaan warbaahintiidio ama xaruumoosho maay waliba Ray Cabdilatiif Maxamed Cabdi wali ku socday warbaahin dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya magaalada Baydhabo lama maalmood waliba ninka socday tababar la ka baraday basic saxaafada la ka baraday saasato wariyalkii oo muddooyinkan ka dambeeyay ku cusub ee warbaahinada shishil diban deegaanada Koonfur Galbeed markaas ay leeyin qowday tababarkan waliba inta badan la ka baraday news volume-ka micnaha masatiirka wararka iyo sidii markaas leen diyaarifadi saasato ku waramo ko colaadaha oo sensitive ka inta badan sidii leen ku waramo lahay wariyalka iyo leen tababaray dad oo muhiim oo yani walbarashadiina iyo horeen waxaan qaban laakiin saasata macallimiin garab siyaasi intii oo warkabarada dadka suuqiyeen yarayna 20 ya meelaha raashin sheegada walbadan ka faa'iideyaan kumid wala oo faa'iidina wal oo meel raashin sheegada uu hormar mid ka sameeyay maahan wal in ka yaano runtii horta meel raashin sheegada loo inta ku hor inta ku hor يعني صدقوا إن هذا كفاح سنة ولا أنا براني كاسين كهنا يعني هذا ولي بس كده يكونها مال رئيس إنشاء سلا فقط بوجيده ونسمينا أما مال رئيس إنشاء ورئيس عصب أوضنا كجيل أما صدق مال رئيس إنشاء ديرك قفكو ورئيسي وسكسام يكون معناها ورياج أنت سكتير نقدر كورو أو مال رئيس برشلنا كتير نقدر كورو horta tababarkan lama maalmood yaa ma ka bardaanay basic oo journalism-ka oo wariinimada maba ku faa'iideeyay walbadan oo faa'iido leh yaa harni oo una araga jarna inta badan qoona hadana bariyaasha cusub leena wala horta maba ku mid ahaan saxda mar badan oo hadda dhiyayaan olaadada iyo barnaamijyada dadka wariyaasha inta badan saqadan ku gudbiyaan oo si saxan olaadada loo gudbiyo oo lama qof inta la ka dhaxeen dhaxadlan hada iyo maray anshaxaga oo wariinimada leh oo qaabka maray anshaxagan ka dhagmo wariga intuu dhinanka badan dhatan hada ustaad Faarax Umar Nuur xogayaha ururka Fesoj ya waliba markaasay Hussein Dhinishe sharaxaada ku biyaya waliyaabo xilligan ka eedii tababarkan iyo waliba muhiimadda markaasay Hussein lahaya wariyalka markaasay geegalahan gabagabiyay Fesoj wayba ka faraxsanta leekooti Baydhabo اللي معنيه الكورنتي دتك كفايل هاي يعني الكورنتي دتك الجيل دليره أو يعني لما نبري اللي أبوري اللي رجب فايل أنو نفكر نقلي أو إحنا معنيه سفيل اللي نجلس ذك اللي هو الفايل بردك اللي سؤال بدل الجو هذا اللي معنيه أو ولا طلع كمان كل شوف إيه معنيه هاي الغبصة فصل رهان أنا مع الشريف مهمة قارن إنجلي مهمة إنجلي ويبوا إني دليرة أو حرفة كجت إني والكبرة ده الشرط القاضي ويبوا هنا والبيسك هاي بدرشوا ويبوا هاي الشح والفريق وبعض الصحافة كبيرة ويبوا بعض سدي هذا الشح عن كذا من الصحافة سدي ولا بيسك يعني شريف يوجد سؤالي ده ويدي أصلا ده الكل ماس ولا هذا ويدي فت يغاب هذا ويدي فت تبارك ويبوا هاي سلطة هرانا ويقبل بعدين كقبل جروب كسبايا كقبل جروب كقبل سمراء كقبل ويبقى كقبل سبايا كقبل سلطة مركز معني ما دام ولي بعدين دلبان أو ريال ساسها كنكني
magaalooyinka kala qaara macni ku bedelan doonaan hore laba hadda qorshaha way badan jireenay meel garowsan in qardhasan tabar wariyaal badan oo tabar qaadan wali tababarkan lanqabadiye wariyaalka ku cusub ee warbaahinta ee la gabagabay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baaye yaa waliba markaasay la diirsii doona gobolada kale ee dalka si markaasay warbaahinta ku cusub ama wariyaalka ku cusub warbaahinta iyo ku faa'iideysada lahayeen Sidi Ali Muuse Maxamed warbaahinta Radio Baydhabo magaalada Baydhabo